magacaygu waa xasan cabdullaahi xuseen waxaan ka imaaday deegaanweynaha Bulxubey. xasan soo dhawow xasan waxaa la rabaa inaad xirxiraanaan aad furi karto waxaad furtaa xirxiraalaha soo socdo diyaar muta aad iyo aad waxaa laga rabaa inaad tiraahdo ninkii kan ma dilay kan iyo kan waxay dhaheen kan iyo kan ma dilin ee kaasaa dilay ninkii kan ma dilay waxay dhaheen kan ma dilay miskaasaa dilay way ku xisho hal mar igu celi adiga maad ninkii kan ma dilay kan iyo kan waxay dhaheen kan iyo kan ma dilin ee kaasaa dilay ninkii kan ma dilay kan iyo kan waxay dhaheen kan ma dilin kaasaa dilay waa xasan aad abaasan soo dhaw magacaaga magacaygu waa xasan isxaaq diiri xasanow diyaar mutaa inaad su'aasha ka jawaabdo haa diyaar waa si fiican okay xasanow magac ka kooban 4 eray haddii laga saaro xarafka ugu horeeyo naqan doono waxyaabaha u gaarka ah dumarka haddii xarafka labaad laga saarana naqan doono waxyaabo dadku ay wada necab yihiin magacaas ma noo sheegi kartaa saabo ku cilmi mar laazim magac ka kooban 4 xaraf haddii 4taas xaraf la akhriyo ee naqanayso wax ummadda dhan ay wada jecel yihiin haddii xarafka ugu horeeyo ee laga saaro ee naqanayaan waxyaabaha dumarka u gaarka ah saabo tan weliga maqlin su'aal tan ka daran ma arkin saabo waa tahay aad abaasan tahay haddaan isku dayo magacaas wuxuu noqonayaa magaca nuur aad iyo aad absolutely aad abaasan tahay adoo magacaaga ku bilaabaya magacaygu waa cabdullaahi xuseen cusmaan waxaa ka soo booqday xaafad Bulxubey cabdullaahi soo dhawow cabdullaahi waxaa dhahdaa xiraalahan soo socdo waxaana dhihin waa dhahda haddii la dhaho ma dhihin ma dhahay waa dhahay la dhaha waxaan lii dhahay waa dhahda haddii la dhaho ma dhihin ma dhahay waa dhahay la dhaha absolutely aad abaasan tahay waa kara bro soo dhawow bro waa dhawe magacaaga iyo deegaanka aad maanta ka soo dumaashay magacaygu waa xasan isxaaq diiri oo ka imaaday waabri xasanow soo dhawow waxaan ka rabnaa xirxiraalahan inaad furto إن شاء الله هذا وعدك تعترف فضو أسكت هدف. ويا حسن حرالة وحيود على سيدة تاني صوته وحي أنا ده واحد هاي هديلي ده مدهن مدهاي واحد هاي لده. وحي عنده واحد هديلي ده مدهاي واحد واسيدها. كلها. وحي ده واحد هاي مدهن. وحي أنا ده واحد هديلي ده مدهن مدهاي واحد هاي لده. وحي ده واحد مدهن واحد واسي. نو وطن وعدك تاني مركب. ويا أنا بزود. soo dhawow ku soo dhawow TV magacaaga iyo deegaanka aad naga soo booqdo maxamed cabdullaahi maxmuud deegaanka aan ka imaaday Qaryoole haddana waxaa ka soo booqday degmada Beri gaar ahaan xaafadda Maajo waa tahay maxamed Qaryoole maciidu damaashaadkeeda awgeeda uga timaaday mise damaashaada ku tagtay may mar hore ka imaaday Qaryoole waa tahay maxamed su'aashan ku weydiin doon diyaar u tahay aad iyo aad waa maxamed su'aashan ku weydiinayno waxa u dhaxaysaa sida tani waa su'aal xiraala ah waxa aniga aan dhaho waa dhahda hadii la dhaho ma dhihin ma dhahay waa dhahay lendaha waxaan aniga dhihin waa dhahay ma dhahay waa dhahay lendaha mar labaad ku cesho waxa aan dhahay ma dhihin ma dhahay waa dhahay lendaha hada baasaday magacaaga iyo deegaankii maanta ka soo booqasho tagtay ما شاء الله magacayga maxamuud sheekh faarax deegaanka aan ka soo tagay waa xoosh degmada xoosh madiina u dhow محمود واتاي waxaan ku weydiinaynaa xirxiraala iyo ku soo dhawo horta wacyi TV xirxiraalaha aan ku weydiin doonana wuxuu u dhici doonaa sida tan soo socoto wixii aan dhaho waa dhaada hadii la dhaho ma dhihin ma dhahay waa dhahay la dhaha wallahi waa hal xiraala aan cajiib ahayn wixii hal mar iigu celibo wixii aniga aan dhaho waa dhaada hadii la dhaho ma dhihin ma dhahay waa dhahay la dhaha صاحب معنا waxaan ka dhigi karo ma aqaan way ugu adag tahay wixii ani aan dhaho waan dhahay hal mar ku celi sheekadii oo waxa wada oo magaciisi maka xaji banaadir waayay wixii ani dhaho waa dhaada hadii la dhaho ma dhihin ma dhahay waa dhahay la dhaha hadda dabcan waa dhahay la dhaha هذا بسيطة ما شاء الله مقعي وحالي هذا محمد عبد الله فارح وحكسوتي كسو بوقشتي دقمه دركنلي محمد ادو كاميرada eegayo maxamed waxaan ku weydiin doonaa xirxiraalo diyaar mu tahay inaad furto insha Allah waa isku daya wax walba isku day waaye insha Allah maxamed xirxiraalaha wuxuu u dhacay sida tan soo socoto wixii aan dhaho waa dhahay hadii la dhaho ma dhihin ma dhahay waa dhahay la dhaha wixii la dhaho ma dhihin waaya ku xisho hamrina ugu celisaa macna waaya wixii aan dhaho waa dhahay hadii la dhaho ma dhihin ma dhahay waa dhahay la dhaha wixii la dhaho ma dhihin hadii aan dhaho waa
waaya maxamed abaasan tahay soo dhawow magacaaga iyo deegaanka aad maanta ka soo booqasho tagtay والله مقعي ودراوي وديقان دقمدن waxay tahay xamar weyn la iska dhaado waayahay waxaan rabnaa inaan ku weydiino su'aasha oo ah waxa jiro shay oo adiga aad kiligaaga haysato hadii qof kale ama qof kale ogaado aan kiligaada haysan karin shay oo dhahdi waxa shay adiga kiligaaga ku kooban laakiin hadaa qof kale la wadaagto aadan haysan karin مشي كرو وايق مخيا waayahay magacayga adaa ku bilaabo Yuusuf Awkar Maxamed aan ka soo tagay degmada Wajir waayahay xaraala aan ku weydiin doona waxay u dhici doontaa sida tani wixii anigu aan dhaho waa dhahda hadii la dhaho ma dhihin ma dhahay waa dhahay leen dhaha haddii aan isku dayo waa wixii aniga aan dhahay haddii la dhaho waa dhahday ma dhihin ma dhahay waa dhahay la dhaha marka la ku celiyo wixii aniga aan dhahay haddii la dhaho waa dhahday ma dhihin ma dhahay waa dhahay la dhaha aad baa maasan tahay si kala daa u fasiro isbedelayso wal hoob aniga dhan hoob ay dhan ma ka dhaho dhayle ka dhee ugu horeen magacayga waa Caasha Cabdullaahi Cabdiraxmaan waxaan idinkaaga soo baqday degmada Dharkiinle ma sha Allah Caashay ereyga jacayl macnay hadii lagu dhaho maxaa ku macnayn lahayd waxa ku macnay man waayahay Caashay hadii lagu dhaho ruuxa adigu aad jeceshahay aad xiriirku hasaabaha la jilayso lacag qaado oo 15 milyan ah qofkaasi xiriirka u jari lahayd maya sabab bila sabab ayda ma santaay ay soo aga iyo deegaanka aad maanta ka timaado Cabudi Maxamed Siido lidhaha deegaankeena wada jiraan deganaa waayahay adoo kaamirada eegayo hadii lagu yiraahdo ereyga jacayl macnay maxaad ku macnaan lahayd wallahi wax walba oo nolosha ee jacayl isku koobsay bislaakan uu saray oo ugu fiican aan dhax karo qofka jacaylka oo lilaahi waayahay hadii lagu dhaho erey ku macnay maxaad ku macnaan lahayd erey jacayl aan qof aan ku macnaan karo jacaylka waalidka midka waalidka waa tahay laakiin mid waxa jira hasaawo lagu sameeyo guri lagu dhiso qoys lagu yagleelo ugu dambeena aad ku suurtagelinay inaad noqoto shakhsi aaba ah markaan ka hadlayna dhanka hasaawaha markuu jacaylka macnay hadaa lagu yiraahdo maxaa ku macnaan lahayd wallahi qalbi aan ku macnay lahayd qofkaan jecel qalbigayga inaan ku tilmaamo oo mas'uul u baxsado mas'aan ku waco shakhsi aad si gaar ah u jeceshahay aad salaan halkaan u marinaysa ma jiraan waa jiraa bal magaca waxaan salaama ayaan Cabdiqaadir aad baad maasantahay ما شاء الله magacayga waxa la Ikraan Saalax degmada waa beri ma sha Allah Ikraanay hadii lagu yiraahdo jacaylku macna gaar ah ka bixi ama wax ku qiyaas maxaad ku macnaan lahayd jacaylka wallahi qofkan jecelahay qiyaastiisa wax badan ma ka door lahayn waayahay maxaa ku macnaan lahayd jacaylka macnihiisu maxaa ku macnaan lahayd macnihiisu waxa ku macneenahay aniga qofkaas aad jecelahay naftadiisa wax walba iiga mahaysan waayahay hadii lagu yiraahdo macna gaar ah ka bixi ereyga jacayl maxaad markaas aad ku macnaan lahayd kalsooni iyo farxad iyo kalgacayl waayahay hadii lagu yiraahdo ruuxa aad jeceshahay aad xiriirka la jilayso lacag 15 milyan qaado xiriirka u jar mu jari lahayd naftadiisa iiga mahaysan lacag